wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo ku guda jira kormeerka imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka gaar ahaan gobolada galbeedka ayaa waxa uu soo maray degmada Salaxley ardayda ku gashay imtixaanaadkaasi waxaana halkaasi uga warbixiyay gudoomiyaha degmada waxbarashada ee degmada Salaxley iyo macallimiinta supervisorada ah halkan waa dugsiga sare ee degmada Salaxley waxa ku galaya 36 arday sida uu sheegay supervisorku 5 waa hablo koob iyo 30 waa inamo runtii si wanaagsan oo anshaxa imtixaanka ku nidaamsan imtixaanku noogu socdaa alxamdulillaah rabbil caalamiin maalintii shanaad baan ku jiraa anigoo ka socda gobolka Sanaag oo kormeeri guud ah ee gobolka Sanaag waxaan halkan ka ahay supervisor degmada Salaxley oo aan shaqada imtixaanaadka ka wado koonaha ka imina waa gareysaan halkan maanta joogana waa gareysaan waxaan u imid shaqaan u imid shaqadiina si fiican bay ku socotaa saasa la sukaayay weydaariya oo qaarba uu tagaa gobol uu tagaa wixii Sanaag ah oo galbeed bay jiraan wixii galbeedana Sanaag meeshaasay jiraan marka imtixaanku saas u socdaa dadkana la isu weydaariya halkani waa deegaanka Libaax Qowdhama oo hoos yimaada degmada Salaxley ee gobolka Murudijeex waxa kormeer ku soo maray dugsigan oo cusub oo xadhiga laga jari doono dhawaan isla markaasina dhameystirmay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno iyo wafdi uu hogaaminayo ugu horeyntii waxa uu uga warbixiyay dugsigan iyo dhameystirkiisa iyo deegaankan ardayda ku nool macalinka ardaydan isagu waxbara iyo odayaasha degmadani waxaanay ka warrameen in ahmiyad weyn ay siin doonaan isla markaasina ay keeni doonaan dugsigan ardayda deegaankan Alhamdulillah rabbil caalamiin halkan imka joogno waxa weeye deegaanka Libaax Qowdhama oo ka tirsan degmada Salaxley waana tuule intii ay dhisnayd oo ahayd bilaa dugsi ilaahay mahadii marka lagu guuleystay in loo taago dugsi waana deegaan dad badan degay arday fara badan ayaa markii hore si beerafadahana waxay ugu sii dhigan jirtay labada aqal malcamada ayay ku sii dhigan jirtay maadooyinkii iskuulka hadana marka inta imaka uu joogay wasiirkani ayaa iyada iyo degmada Salaxley iyo dhowr dugsiyo kalaba laga furay laakiin kan waxa weeyaan kormeerkii imaka uu ku soo maray wiigan imaka uu dhamaaday dhismihiisii laakiin wali waa la qalabkiina uu yaalaa daraad buu dhamaado fartii ugu dambeysay laga qaaday wasiirkuna si kadis buu loogu yimi isagoo kormeer ah waxaan joognaa deegaankii Libaax Qowdhama anigoo ah macallinkii iyo maamulkii iskuulkaba maanta waxa booqasho noogu yimi wasiirkii waxbarashada ardayda aan deegaan ku haynaa waa 100 ay ku dhow yihiin wasiirka iyo wasaaradda waxaanu uga mahadnaqaynaa iskuulkaasi aanu u baahnayn ay noo dhiseen mahadda waa idinku mahadnaqaynaa waa idinku salaamaynaa waxay naga dhimanna waa noo dul qaadanaysaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno oo goobtan isaguna ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyay in dhammaan ardayda deegaanka la keeno dugsigan isla markaasina dhawaan xadhiga laga jari doono deegaanka Libaax Qowdhama oo ka tirsan degmada Salaxley oo aanu saaka soo barray inkastoo ujeedadii koowaad ee socdaalkaygu ay ahayd kormeerka imtixaanadii maanta aanu soo baxnay Balugwadle iyo Salaxley haddana waxaanu fursadda aanu ka faa'iideysanaynay dhulkii aanu maraynay iskuulada iyo librariyada iyo xafiisyada ay waxbarashadu ay ka dhistay in aanu soo aragno heerkay marayaan laakiin dadka deegaankuna waa inay dadaalaan oo carruurta la keeno inkastoo dadkeenii miyigu imika si fiican ay wax u bartaan oo waxbarashada ay soo fahmayaan maadi iyo diiniba meel waliba iyo sanad walibana dadka joogunbu u ekaanaya dadka deegaanka degay iyo madaxdoodu iyo sabankaaba jooga hadday firfircoonayeen way u ekaanayaan haddii caajis ku jirana way u ekaanayaan oo taariikhda way u gelisaa marka intii dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashadu way dadaalayaan